5 qof oo rag ah iyo 3 dumar ah oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Poland ayaa lagu xukumay maxkamad ku taala dalka Ingiriiska kadib markii lagu helay dambiye la xiriira adoonsi iyo dhaqidda lacagta. Xeerlaalayaasha maxkamadda ayaa xukunka kadib faahfaahiyay kiiskan iyaga oo ku micneeyay inuu yahay mid ka mid ah kiisaska ugu culus ee la xiriira dhibaataynta dhinaca jinsiga ah ee qof ama koox lagula kaco. 8 qof oo maxkamaddu xukuntay ayaa asal ahaan ka soo jeeda dalka Poland waxaana ay magangeliye ahaan ku joogeen dalka Ingiriiska. Waxay xeerlaalayaashu sidoo kale sheegeen inay jiraan kiisas kale oo kuwan la xiriira sida dad ka badan 400 oo qof oo ah dhibanayaal lagu qasbay in ay si qasab ah ku shaqeeyaan iyaga oo qaadanaya lacag aad u yar marka loo fiiriyo sharci ahaan inta ay xaq u leeyihiin. 8 qof ayaa la tuhumsan yahay in dadka tiradaas gaaraya ay ku qasbeen in si qasab ah ay ugu shaqeeyaan isla markaana ay siinayaan lacag aad u yar iyaga oo faa'iidaya lacag malaayiin dollar. Nolol ahaan waxay ahaayeen dadkan kuwa ku nool nolol farxad iyo raaxo leh marka loo eego nolosha ay ku nool yihiin dadka dhibanayaasha ah ee qasabka ugu shaqeynayay, ayuu yiri mid ka mid ah xeerlaalayaasha maxkamadda, waxaana si toos ah ay ugu xadgudbeen dhammaan xuquuqihii iyo sharaftii ay lahaayeen dadka dhibanayaasha ah, ayuu hadalkiisa si raaciyay. Kiiskan dadka lagu helay waxaa ka mid ah nin dambiile ka ahaa dalka Poland oo ka ganacsan jiray muqaadaraadka ama waxyaabaha maanka dooriya, kaasoo dalka Ingiriiska yimid kadib markii uu helay ballanqaad been abuur ah oo dhinaca shaqada ah. Dhammaan dhibanayaasha ayaa la sheegay inaysan helin dhammaan xuquuqihii asaasiga ahaa ee nolosha sida musqulo fiican, cunto wanaagsan oo ku filan iyo dharka adag ee qabowga laga xirto. Arrintan ayay maxkamaddu ku tilmaamtay inay tahay mid ka mid ah kiisaska ugu culus ee lagu dhibaateeyo bini'aadamka, waxaana dadkan loo shaqeynayay ee 8 qof gaaraya ay helayeen lacag malaayiin dollar ah oo faa'iido ah iyaga oo dadka u shaqeynaya oo ah dad darbi jiif ah siinayay lacag ka yar $1.